haddana waxaan soo dhaweynaynaa Sheekh Ridwaan Cabdullaahi oo soo jeedin doonto mowduuca ku saabsan shubhaadka ay sheegaan dadka diidan mawlidka nabiga calayhi salaatu wassalaam. soo dhawo Sheekh Ridwaan. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alhamdulillaahi Rabbil Aalamiin. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزد لنا علما نافعا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. ولا ليال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما ضدك مسلمين تعمش سجوجمت والد له ولا له ولد له وعنكو سلام يا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إله أيها أولا مهد إسكاله إنه كل مية مجمع عن قروح ذا بدن إذا كلن كان قروح ذا بدن أنكم مع موسى إنه حبيب كان عليه الصلاة والسلام بشي ولا شيء أنكم سودوين إنه ماشى موضعا وكرعها يا ما كلن كان وكرعها يانا ومدرسة وين بيترا شاعرة ولا ليال كل هدي له حبيبك عليه الصلاة والسلام ما أنت أنها لقى شيء كي واحد لقى سوق جون كرمها لكن أنا سودوين بشر بركيسن حبيبك عليه الصلاة والسلام يعني وحير كتابنا إن هدي إلى هجرة أنا موضع كهلايو شهباتك يو حياة وحكم الجيران كإيه ومضى للحورية موضع عصر الدين تسع أيام كهلايا intuu ilaahay naga gaarsiiyaan ka gaadhno. walaalayaal waxay dhaheen dadka kuwa maaniciinta ee mawlidka nabiga calayhi salaatu wasalaam ihtifaalka diidan waxay dhaheen dadka ihtifaalka mawlidka dhigaa waxay aaminsan yihiin inay ciid saddexaad tahay. warkaasna war wax ka jira ma war lagu celinayo marduud ah. maxaa yeelay ihtifaalka mawlidka isagaaba ka weyn ba ciidu sanadkii hal mar bay timaadaa ama ihtifaalka mawlidka nabiga calayhi salaatu wasalaam asagu ama weynayntiisa u qasadkiisa iyo ka sheekeynta xabiibka calayhi salaatu wasalaam siiradiisa in laga sheekeeyo waa waajib markasta taagan oon ku qaydnayn waqti iyo zaman iyo walaa makaan midna aan ku qaydnayn. dadka markaa ku idlaaqay inuu yahay maxaan ku dhahay nabiga ihtifaalkiisu inuu yahay calayhi salaatu wasalaam ciid ugalama qastayaan ciidii sharcigu uu jideeyay ee sida ciidul adha iyo ciidul maxaan ku dhahay fidri yani waxay ku dureersanayaan ama caadada say tahay ciidu waxay tahay ayaamul farax waa lagu farxaa waa la isu hadiyeeyaa waa maxaan ku dhahay la isu hambaleeyaa farxadaas laajligeed iyo bisha ihtifaalka mawlidna ay farxada iyo maxaan ku dhahay reyntaas ayay ka shabahaysaa. saa laajligeed ayaa maxaan ku dhahay anaguna aan u leenahay maxaan ku dhahay ihtifaalka mawlidka nabigu waa farxad waa reyn وترددا بذكره أن كل إلنا أن كل معنسنه عليه الصلاة والسلام. شوفوين كلاي هذنا لسه استعجاني ضدك وشيء هيان معنى عنده وحكم إذا أنا يدهن احتفال كمولدك عليه الصلاة والسلام وبالزيادة شريعة الزيادة وكيه ديري والدين تعلق لما يسترها ولا لسان أبنه الدين توي لما يستر أنت إلهي سود شيء لما يستر. waxay dhahan haduu khayr yahay la facalahu nabi sallallahu alayhi wasallam haduu khayr yahay nabiga sameeyay lahaa baa salaf saalixi iladaana waa ila marduuda waxba ka jirin waayo ma jiro hal qof oo maxaan ku dhahay caamada muslimiinta kamid ah oo waxa ay sheegayaan inuu mawlidku uu ku yahay istiyaado shareecada
aaminsan ama malayn hayaa ma jiro iska dhaaf maxaan ku dhahay culimada muslimiinta mana ahaanin macnaheedu xabiibku calayhi salaatu wasalaam wuxuuna samaynin ama salafkii ayna samaynin ee dadkii ka dambeeyay ay sameeyeen mid diinta lagu dhamaystirayo ama diinta saa'id ku ah ma ahaanin marka dadka saa ku doodaya hadaan hadalkooda loo raaco maxay kale yihiin ama qofka saa ku doodayo muxuu kale yahay kumanaanka kun ee masaa'isha ah ee ijtihaadiga ah aamadii muslimiinta ay ku ijtihaadeen ee diinta kamida ee soo daahirtay maxay kale yihiin ma waxay leeyihiin diinta ayaa lagu dhamaystirayaa iyadan ma dhahayaan mise ma ka ansaxayaan inay dhahaan nabigu wuu ka tagay calayhi salaatu wasalaam iyo salaf saalix way ka tageen ama wayba hilmaameenoo way ka gaabiyeen mise jaahil bayba ka ahaayeenba arrinta ayada subxaanaka haadaa buhtaanan cadiima arrinkaas waa arrin aan waxba ka jirin oo been abuura walaalayaal nabigeena calayhi salaatu wasalaam ninka intuu meel soo istaago maanta dhahaya nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam intii la iskugu yimaado lagama sheekayn karo kulli aan waxaan arkaa nin qalbiga ka jiran maskaxda ka jiran nabi maxamed tacdiimin calayhi salaatu wasalaam inagama baahna ilaahaygi abuurtay ayaa tacdiimiyey ma jiro qof waxaa la dhahay khudbad soo jeedinaya ama ilaahay u waxidahaya ama salaad tukanaya ilaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay markuu sheego magaciisana uu ku cadfan yahay intaasaaba ugu filanba isaga weyneyn iyo tacdiimin iska badaa aayadaha iyo axaadiista iyo cadaynahaya marka walaalayaa anigu kale ayaan daro weyn ayaan u arkaa maanta xabiibkeeni nabiyur raxma xabiibul hudaa in maanta lagu doodo oo uu dood galaba takhfiifan baan u arkaa la fudaysanayo in nabiga laguba doodo lagama sheekayn karo waa laga sheekayn kara in maanta la dhahaba kulley maxaan ku dhaha arrin fiican ma aha waxa laga sheekaynaya gabdhaheen inaga soo horeeyay iga horeeyay ee axbaabta ay sheegeen waxba kuma siyaadin intuun baan ana sheegayaa maxaan ku dhahay siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam fadaaishiisa maxaan ku dhahay qisbooyinku soo galay suu dadka ula dhaqmayay macaamishiisa gaal iyo islaamba dadka suu ruux walba darajadiisa uu ku qiimeynayay macaamiisha inaga inoo fiican tahay jiilka inaga dambeeya ama ilmaheena inaan baro waxaa la dhahaa ummaddu haddayna dhaqan lahayn taariikh ma laha dhaqanka waa kan maxaan ku dhahay taariikhda reeba marka ilmahan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuu maqlay haddaan loo sheegin nabi maxamed dhaqankiisii siduu u ekaa diintan dhibkuu ka soo maray meeshuu soo gaarsiiyey gaaladiisuu ula jihaaday haddaan loo sheegin berri markii ay waqtigooda jiilkooda ay gaadhaan maxay ka sheegi karaan xabiibkooda calayhi salaatu wasalaam mise maaman ilownaa oo waqtiguu nabigu calayhi salaatu wasalaam bishiisii bilaha kale haddayna inooga cayinayn soo ayaan darlabaad maha iyadana intaana anaa ku darsanaya waa in badan qalbigayga ka guuxaysay marka walaalayaal waad ku mahadsantihiin soo dhawaada aquulu qawli hada waastaqfirullah li walakum assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ما شاء الله شيخ قدنا خير الله سيء